بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمضى الصوماليين مeel kasta aad ka joogtaan daafaha caalamka waxaan rabaa maanta inaan soo qaato barnaamij yar oon isku dayo insha allah inaan soo xiriiriyo intii aan ka gaaro macallimiinta soomaaliyeed ee ku sugan waddanka gudihiisa ama dibaddiisa marka hore waxaan leeyahay hambalyo dhammaan barayaasha soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan daafaha caalamka hambalyadaas oo ku salaysan munaasabadda maalinta baraha soomaaliyeed oo ku aadan maanta oo tirsigeedu yahay ama bishu ay tahay 21 bisha deyr halaalood ama waxa afka ingiriisi lagu yidhaaho November 2021 waxaan isku dayayaa insha allah inaan soo xiriiriyo dhowr macallin oo runtii qaali agteeda ka ah waxaan rabaa inaan waraysiga runtii maqal muuqaal ma soo geli karo laakiin waxaan isku dayaa inaan maqalka macallinka aan soo geliyo insha allah waxaan wacayaa ustaad faarax xuseen maxamed oo loo yaqaano farax soomaali الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله استاذ فرح حسين محمد ما شاء الله فرح صومالي aad baad umahadsan tahay marka hore waxaan ku leeyahay hambalyo munaasabadda ku aadan maalinta macallinka oo ah maanta oonu joogno 21 bisha deyr halaalood ama November waxaan rabaa marka ma sha Allah maadaama aad tahay runtii macallin aad iyo aad u qabiir ah run ahaantii muddo dheer ku soo jiray howlahan macallimada oo runtii aan dhihi karo ku dhowaad ilaa 40 sano iyo in ka badan runtii hadda ma maqlaysaa marka waxaan ku leeyahay ustaad farax munaasabadan iyada ah oo ku aadan maalinta macallinka 21 bishan hadda aan ku jirno ee deyr halaalood ama bisha November 2021 waxaan rabaa bal ereygaad inaad ka tiraahid maadaama aad tahay macallin rugcadda ah oo muddo badan ku soo jiray arrimaha waxbarashada waxaan rabnaa bal ereygaada munaasabadan iyada ah bal inaad nagu kabto ku soo dhawow ustaad faarax. waa ku dhawahay saaxiib, waa ku dhawahay boqolkiiba boqol. runtii maalintan maanta ah waa maalin aad iyo aad qiimo u leh oo aad ugu weyn xagga macallimiinta, inkastoo yacni sidii aan ka rajaynaynay dowladda aysan u dhicin, balse waa maalin xusuusteeda mudan oo aanay iloobi karin oo qiimo weyn noogu fadhisa haddii aan nahay macallimiinta Soomaaliya. aad baad u mahadsantahay ustaad farax maadaama muddo dheer aad ku soo jirtay arrimahan waxbarashada oon filayo muddo ku dhow ugu yaraan 40 sano aad ku soo dhex jirtay ma is dhihi kartaa waqtiyadii hore sida loo xusi jiray iyo waqtigan hadda la joogo waxbaa iska bedelay? wax isku dhow maaha, wax isku dhow oo laisgarab dhigi kara maaha. yani qiimihii iyo xusidii ay mudneed ma haysato waqtigan hadda la joogo. baasha yani xilligii dowladdii gacanka waxay ahayd maalin aad loo qiimeeyo oo golaha murtida iyo madadaalada inta laisugu tago xaflad lagu dhigto. hadda yani dowladdii wax danaynayaba iyo wax wasaaraddii waxbarashada qiimo xaggeeda ka leedahay maba jiraba. marka wax isku dhow maaha, yani waa la ihmaaliyey aad iyo aad. waa yani qiimeyntii hoosta loo dhigay. ustaad faaraxow mar aan la xiriiray macallimiin joogto gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxay ii sheegeen in wasaaradda waxbarashada ama guddoonka waxbarashada ee gobolka uu qabaqaabiyey xaflad
lagu maamuusayo maalinta macalinka maadaama aad joogtid caasimadii soomaaliyeed ee muqdisho ma waxaad leedahay wax dhaqdhaqaaq ah oo ka jira ina wax yaratee ma jirto wallahi kulley macallimiintii waa isku yimideen oo jaamacadda ummadda xaflada lagu qabtay hase ahaatee cid wasaaradda waxbarashada ka socoto ama wasiira ama wasiir ku-xigeena oo kasoo qayb galay haba yaraatee ma jirto marka qiimihii ay laheed ma fahamsana saan filayo dadka hadda waxbarashada horbood u ah oo hadda hogaamiya marka saaxiibow beledweyne waxaa waaye waa magaalo iska kooban oo yar inta waxaa waaye iskuulaadka naftigoodii ayaa tam qaarkood shaqaynaya maanta oo aan qiimahaasba ay nala lahayn maasha allah isaas farax aad baad u mahadsan tahay waktigaada qaaliga ah insha allah dib ayaan kugu soo noqon doonaa aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa ceshiya ayaa kuu soo dhow hadda kheyr baan kuu rajeynaya hambalya mar labaad waxaan ku leeyahay maalinta munaasabada macalinka soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidaan hore idinku ballan qaaday in aan la waco ama aan la xiriiro macallimiinta aan ama barayaasha aan isleeyahay runtii muddo dheer ay kusoo jireen arrimaha waxbarashada waxaan rabaa haddan inaan soo dhoweeyo staad cali baarey oo ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo ka mid a macallimiinta ama barayaasha aad u qiimaha badan inuu bal waxyar nooga taabto sida looga dabaaldegay maalinta macalinka marka hore ustaad cali soo dhowo waxaan ku leeyahay hambalyo anoo kugu hambalyanaya munaasabadda maalinta baraha soomaaliyeed ku soo dhowo ustaad cali waa dhowahay aad baan idiin salaamayaa ustaad farax adiga iyo dhammaan walaalaha soomaaliyeed meel walbay joogaan gaar ahaan cariga maraykanka walaalaha jooga oo soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo runtii waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale aan ku gaarno nabadgelyo iyo caafimaad waxaan hambalyada aan leeyahay waa maalintii macalinka soomaaliyeed runtii oo la aasaasay ama in la xuso runtii 21 bishii 12 1924 loona asteeyey loo aqoonsaday maalinta macalinka soomaaliyeed runtii waxaan leeyahay dhammaan macallimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan daafaha dunida hambalyaan leeyahay hambalyaan leeyahay sanad wanaagsan anna hambalyo sidaas kale ayaa waxaan leeyahay dhammaan barayaasha soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan daafaha caalamka hambalyo maalintan munaasabadda 21 bisha deer halaalood 2021 ama bisha november afka ingiriisi waxaa lagu yidhaaho ustaad cali waxyar waxaad nooga taabataa maanta sida loo xusay maalinta macalinka ee magaalada beledweyne runtii ba'da waxbarashada iyo dhammaan maamulka gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne iyo shacab weynaha magaalada beledweyne iyo bahda waxbarashada maanta waxay u wada gudbeen iyagoo isku wada duuban sidii loo xisi lahaa maalinta soomaalida ku weyneeyaha maalinta macalinka 21 November bisha November oo maanta ku beegnayd marka waxaa la qabtay xaflad weyn xafladda waxaa soo agaasimay maamulka waxbarashada gobolka hiiraan cabdifataax dhaqane cumar iyo bahda kale ee waxbarashada gudoomiyaha degmada waxbarashada gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada beledweyne gudoomiyaha waxbarashada degmada beledweyne usmaan iyo mas-uuliyiin kale ee ka socotay bahda waxbarashada maamulada iskuullada beledweyne bahda waxbarashada macallimiinta ardayda maamulka degmada runtii waa laga soo qayb galay sidoo kale waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada magaalada beledweyne waxaa kaloo ka soo qayb galay duqa magaalada nadar tabaax gabadha nadar tabaax marwo nadar tabaax iyo
mas-uuliyiin kaloo la socotay oo heer gobol iyo heer degmo intaba runtii waxay ahayd xaflad aada u qiimo badan oo aada loo soo agaasimay waxaynu ku dhammaatay jawi fiican waxaynu ku bilaabatay jawi wanaagsan waxaana la tusaaleeyey oo aada loo qaadaan dhigay ahmiyadda uu leeyahay macalinka soomaaliyeed runtii waxaana loo duceeyey macallimiintii soomaaliyeed ugu soo horeeyo sheekh yuusuf alkawnayn runtii iyo macallin jaamac suule maxamuud axmed cali iyo dhammaan macallimiintii soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwii dambaba intay dhimatayna ilaahay inuu naxariisto inta kaloo maaragtaa noolna ilaahay caafimaad uu siiyo runtii xaflad weyn bay ahayd oo aada u ballaaran waxaa lagu qaadaan dhigay runtii dhibaatooyinka horta waxaa lagu qaadaan dhigay ahamiyadda uu macallinka leeyahay inuu yahay barbaariyaha ubadka inuu yahay dhowraha hiddaha iyo dhaqanka inuu yahay ninka ummadda ka saaro daayad mugdiga una saaro nuurka runtii aadaa loo tilmaamay macallinka ahmiyadda uu leeyahay bulshadu waxaa lasoo qaatay gabayo muujinayo maalinta macallinka iyo ahmiyadda macallinka uu leeyahay oo gabayo soomaaliyeed iyo kuwa carbeed intaba oo lagu tilmaamayo muhiimadda uu u leeyahay macallinka sidoo kale waxaa la qaadaan dhigay oo aada loo lafaguray daryeelka uu baahan yahay macallinka ha noqoto xuquuqdiisa waxbarasho ahaan marka la leeyahay inuu helo aqoon kororsi tababaro iyo wixii lamid ah iyo inuu helo adeegiisa caafimaad oo daryeel ah waxaa aada loo sheegay in macallimiinta soomaaliyeed dayacan yihiin runtii aada iyo weyn si aada maaragtay u dayacan yihiin inaysa macallimiin badan u baahan yihiin daryeel caafimaad oo qaarkood tahay weliba u baahan yihiin dalka aan waxba looga qaban karin runtii waxaa aada kaloo la sheegay macallimiinta maamulada dowladda inay soo saaraan xeer iyo qaanuun macallinka xuquuqdiisa dhowraayo maanta waxay ahayd calaa iyo xaal macallin aada u weyn oo si fiican loogu xusay maalinta macallinka soomaaliyeed magaalada balweyne ustaad cali aada baad u mahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo sidaan la socdo ma sidaan wada ognahay waxaa tahay nin hal abuurka runtii aada ugu dheereeyo wax ma ka tiri maalinta macallinka wallahi maalinta macallinka suugaanta soomaaliyeeda horay waxaad moodaa inba horay loo xaalufiyeyba runtii macnaha macallinka waxaa la yidhi qum lilmucallim wafi tabdiila kaada almucallim an yakuna rasuula macnaha axmed shawqi amiir shucaraa alcarab waxaa kaloo jiro abwaan soomaaliyeed oo tilmaamaya qiimaha macallinka uu leeyahay oo maaragtay wuxuu meel la joogaa rasuul mawla soo diray waxaa tilmaamayo heestii aqoon la-aani waa iftiin la-aan waa aqal iyo ilis la-aan cabdullaahi qarsho waxaa tilmaamaya heestii ahayd waxaan ahay waadiga dugsiyada waxaan ahay waanada macallinka waxaa tilmaamayo ducadii ay ilmaha dugsiga qur-aanka qaadi jireen macallinkeen allow ka aal kiisa kale allow ka aal inkaa shabay allow ka aal runtii waxaad moodaa ammaanta soomaalidu suugaanta soomaaliyeed ay ka tilmaantay macallinka iyo muhiimadda uu leeyahay inaanba waxba loo hambaynin oo horeyba loo yidhi runtii laakiin ammaanta macallinka lama soo koobi karo hal maalin iyo hal xaflad keliya laguma soo koobi karo aad baan kuu salaamaya waa aad baan kuu salaamaya maasha allah waxaa isoo xasuusisay ducadii macallinada macallinkeen allow kaal macallinkiis allow kaal inkashafkiis allow kaal ducadooda makfayeen maasha allah aad baad u mahadsanaysaa cali waktigaada qaaliga ood nagu deeqday kulan dambe oo xiise leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan isku dayey in aan la xiriiro macallimiin aada u fara badan oo aan wacay runtii way ii suurtageli waysay halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waraysigii aan la yeelanayay macallimiinta soomaaliyeed iyo warbixintii ay naga siiyeen oo ku saabsanayd
sida waddanka soomaaliya looga dabaaldegay maalinta macalinka oo ku aadan maanta oo bisha deer halaalood ama november ay tahay 2021 waa sad farxada leh kulanta buuxiisa leh wasalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatuh murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi ha mogaanin taariikhda